بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaagno talooyin iyo kalimaad naftayda iyo naftiinaba aan la jeclaystay inaan la wadaago. kalimaadkaas waxay yihiin qofka muslimka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey diin, wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyo, waa sharfay iyadoo bini aadamka oo dhan ilaahay uu karaameeyey. waxaan aynu ku noolnahay aynu la soconnaa wadamo runtii aan bii'adeenna iyo diinteenna iyo akhlaaqiyaadkeenna aan la jaan qaadaynin waxa yaalla. waxaynu ku dhalnayoo inoo jooga awlaad iyo caruur iyo inagiiba waynu joognaa. wax badan oo ilaahayna aanu raalli ka ahayn, dhaqankeennu raalli ka ahayn, diinteennuna aanay raalli ka ahaynna waynu arkaynaa. halkaa markaynu taagannahay markaa maxaynala gudboon? waxaynala gudboon diinteenna ilaahay baa inala hadlay, si walba inoola hadlay. nebigeenna ayna tusaaleeyey calayhi salaatu wassalaam inaynu rumayno oo yaqiimino oo aynu ku dhaqanno oo aynu fulinno oo aanay inaga noqonin maqal oo dabeedna iska soco oo keliya wacdi la dhegaysto oo laga socdee inay noqoto qodobo la fuliyo oo lagu dhaqmo. aayadda laguu sheego iyo xadiidka laguu sheegaa waa inay dhaqankeenna wax badan ka bedelaan. ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala faidaa cazamta fatawakal cala allah. markaad go-aan gaadho eed tashato, eed dadka la tashato, eed go-aan qaadato, ilaahay tala saara subxaanahu wa tacaala oo yaqiiniyo qalbigaaga geli ilaahay inaanu ku dayacaynin. laba, nebigeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu. qofka shay uga taga ilaahay dartii uga taga oo raaligelintiisa darteed uga taga, ilaahay baa wuxuu ugu bedelayaa wax ka khayr badan waxa uu ka tegey. waxaa kaloo iyadana aad iyo aada u muhiima, meeshaad doontaba joog, xaaladdaad doontaba ku sugnow, ilaahay waxa uu ku siiyey inaad wax ka bixiso. waxay keenaysaa ilaahay inuu adiga kugu ilaaliyo oo awlaaddaada ku ilaaliyo oo risqiga ilaahay kuugu barakeeyo oo cumriga ilaahay kuugu barakeeyo. waa xadiidka uu nebigu sheegayo ayaa macnihiisu sidaa sheegaya calayhi salaatu wassalaam. nin aanu saaxiibba nahay ayaa saacad ka hor noo warramay oo ii warramayay oo wuxuu yidhi laga soo bilaabo markay taariikhdu ahayd 89 ilaa yowmina haadaa naftayda go-aanaan la gaadhay baa jira, waxna aan ka arkay. wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida magaalooyinka soomaalida mid ka mida anigoo bakhaar ku haysta oo nin dhallinyaro ah oo aan reer lahayn oo aan culays lahayn ayaa waxaan anigoo maqrib xidhaya dukaankaygii oo bakhaarkii soo xidhaya ayaa waxay la kulmay buuri nin weyn oo odaya oo sharaf badani ka muuqato oo muuqaalkiisu muuqaal dadka su-aasha dadka ku celceliya ama shaqo ka dhigta aan u muuqanin. wuxuu igu yidhi buu yidhi dowladdaan u shaqeeyaa adeer, 2 maalmoodna reerkayga waxba looma karinin ee wax maygu dhaantaa. wuxuu yidhi lacag 30,000 oo shilin Soomaaliya baan jeebka ku sitaa oo aan isleeyahay weyga soo socda iyo maalmaha soo socda jeeb ka dhigo iyo basaska iyo iskaga bixi. kadibna jeebkaan gacanta geliyey, waxaan u dhiibay buu yidhi 30,000 baan gacanta ka saaray. odaygii culayska lacagtuna xilligaa lacag dee waxay ahayd lacag qiimo leh, waa qaadan waayey. isagoo ducaynaya ayaan dabeedna baskii ku soo xigay ee meeshuu hormarayay baan gacanta u taagay. waxaa ka soo degtay buu yidhi dabeedna eedaday oo dabeedna la soo doonay oo la rabo in la guursado oo 3 milyan oo shilin oo lacaga la siiyey oo la yidhi alaab ku soo gado oo suuqa la qabo. iyaduna go-aan markaa qaadatay oo tidhi ciddii ehelkayga ee igu soo horraysa ee aan la kulmo waa inaan siiyaa 300,000 oo shilin waa inaan siiyaa. nebigeennuna wuxuu inoo sheegay alxasanatu bicashri amhaaliha. hal wanaag haddaad samayso ilaahay 10 jeer buu kuu liminlaabayaa. ninkaas wuxuu ku dhaartay uu noo xaqiijiyey ninkii uu 30 ku siiyey muuqaalkiisu waa u sii muuqdaa markii ay soo gelaysay 300,000 ay soo gelayeen. maxaad u malaynaysaa? go-aan baan qaatay buu yidhi laga bilaabo maalintaas
maalin kasta oo soo gasha cadceedu intaana dhicin waxaan ku dadaalaa inaan waxuun la baxo inaan wax uun sadaqaysto inaan miskiin raadiyo inaan dacwadda wax ku bixiyo inaan khayrka wax kaga qayb qaato inaan meel mudan wax ku bixiyo inaan qaraabada xiriiriyo maxaad u malaynaysaa hal midaad ka sheekaynaysaa haddii ilaahay uu kuu suurto geliyo dhowr meelood inaad ka farxiso ama aad kaga qayb qaadato khaasatan xilligan iyo waqtigan aynu ku jirno oo baahida iyo duruufta iyo dhibaatooyinka ay ka badan yihiin xilliga ninkaasi markaa ka warramayo ka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa oo ku soo koobayaa kelmaddan qofka muslimka waa inuu qorshe leeyahay oo noloshiisa uu qorshe ka leeyahay meeshuu doonaba ha joogo qorshihiisaasna uu yahay qorshe ilaahay ku xidhan uu ilaahay ku tala saaranayo kadibna uu go'aankiisa ilaahay u dhiibanayo waxaynu leenahay ilaahayna ku dayici maaya markaas intaasaynu kelmaddeena maanta ku soo koobaynaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين